dheefaysta didibkiina maaraysta dhambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhalinyaqa kacotoosa didibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta didibkiina maaraysta dhambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay California Dayton Minnesota soo dhaafa nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay California Dayton Minnesota soo dhaafa والسلام يا مركب هوري أصحابتي أنا قرني مقعي جوا فايزة وحن عاوز كوي ماني وحن كوي ماني إن واحد يركه هذا التكتجا ما كل إيراني نقد بدينا وحن رمينا كهذا الله دليردينا رمينا ماركت وحياة بدن awareness كا وعدي قلتها وحياة صورن إن أوسمينه مركب كوبات وحن الله هاي همبليو كود لوليو وسودو هذا أصحابته ما شاء الله هكذا day marka labaad waa maalintii Canada also so happy Canada Day everyone aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad nooga qayb qaadateen iyo sida aad samir u yeelateen anagoo xitaa caawid ku raagnay raalli ahaada mar labaad all right waxaan markaa idin sheegaynaa in aan aad iyo aad u rabno inaan maaragtay anagu aan nahay urur is aruuriyay dhalinyaro dunida dacaladoodana ka wada shaqeeya ku bilaabay program social mediaha in ay ka hadlaan si ay maaragtay wacdigelin badan ugu sameeyaan dhalinyartooda Soomaaliyeed aanu adkaysan weynay maalin walba la dilayo ama wax walba ay ku dhacaan marka waxaan u baahanahay inaan u kacno hooyooyinka iyo kulli iyo waalidada gacmaha is qabsano oo caruurteena u istaagno aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayaa waxaa kaloo hadlaysa walaashay Nasra iyo Naciima u soo dhawaada Good evening everybody waxaad leeyahay habeen wanaagsan kulligeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدكيكم مقليسين مخيليا Okay loudest How about now Okay go ahead Hello everybody السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan caawan nooga soo qayb gasheen wajiyada quruxda badan Soomaalinimada aad muujiseen absolutely waa mid aan la qiyaasi karin waxaan idin leeyahay thank you so much as a Somali Canadian also waxaan idin leeyahay welcome tonight wax badan ma hayna caawa waqtiga nagu yar time-ka nagu yar because our DJ is coming late so we gonna carry all of our program as much as we can waxaan halkan ku soo dhaweynayaa insha Allah walaalkeen Maxamed Cadar oo caawa inoo martiya oo community-ga ku soo buray welcome Maxamed Cadar waxaan nooga dhigay caawa rabnaa inaan nooga hadasho wax yar waqtigii aan noo saarmay calankeena 1960 hadaa history nooga hayso daa wax nooga sheegi kartid dad badan ayaa waxa jiro laga yaabaa inaysan haynin history of Somalia can you please come up and tell us something and thank you so much السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله آد ما سنتين آد وحنو فرح سنة هاي مركز ديبندنت بخشيت أما celebration في الصومالية وعلى واحد سوستا SYL Youth مركز برنامج كان مركز قلبته حالي شاي أركاي فرح community وحالي واحد organize كده جاي دليل
So I'm very glad waxaa aad ugu faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo la oran karay waxay dhumin karaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida inay hadda odayaashii qaar maqan yihiin dadkii organisarin jiray waqti badan waddankan Canada deganaa in dhalinyaro ay organisarisay oo ay maanta xasuusan tahay dhalashadii xornimada Soomaaliya 1960 aynu gumaysiga ka qaadanay oo wax hob weyn oo aan la heli karin celebrationkaasi aad baan ugu mahad celinayaa reer dhammaan Canada waxa wixii maartay ka soo qayb galay caawa iyo dhalinyarada qaban qaabisay runtiina waxaa meesha ka muuqata in dhalinyaradu mar haddii ay haystaan dhaqankii Soomaalida iyo taariikhdii Soomaalida iyo wixii laga soo maray haddaad wax yar dib ugu noqono 1960kii xornimada markii la qaadanayay waxa active ahaa qabyaaladda ka fogaa wax walbaba shaqadii Ingiriisi iyo Talyaani xornimada ka qaatay SYL da maqasaan da'doodu intay la eg tahay da'doodu SYL ninka ugu weyn ayaa wuxuu ahaa 35 jir dadkii SYL dhalinyarada ahaa Ismaan Geediraaga da maqashaan kulligood waxay jireen 17 16 18 19 wax 35 soo gaaray hal ruux baa ka jira marka maxaad qiyaasi kartaan haddii xornimadii Soomaaliya Somali Youth League dadka aas-aasay ay yihiin teenage marka aad waxaan ugu farxay inay boqolkiiba boqol dad aad u yar tahay inay aas-aaskaasi ay wala hayaan marka Soomaaliya wala ma dhimanin qabyaaladda iyo dhibaatooyinka gaartay waynu la soconaa balse waddankeennii waa waddan aad u xoog badan maantana xornimadiisii iyo dadaalkiisii dhalinyarada inay sii wadaan lana xoojiyo dhimashada iyo dagaalka iyo waxyaabaha ay dhalinyarada lagu baabi'inahayeen waxa waa inay qaramada ummadda Soomaaliyeed baaba'do marka farxadda caawa meeshaan ka muuqata dhalinyaradii muujisay hawshaan qabatay mahad gaare ayaan anigu celinayaa mahaddana waxaa iskale ilaahay sidaa ayaynu caawa ugu dabaaldegaynaa insha allah waalidiinta inay dhalinyarada la siiyo support lagu support gareeyo siday dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii u ilaalin lahaayeen xagga dhaqaalaha in xoog lagu support gareeyo waalidiinta iyo dhammaan maaragtay ganacsatada in dhalinyaradii xoog looga warqabo activity-ga ayagu ay markasta programmada soo diyaar gareeyaan waalidiintuna ay wadaan as much aynu baabi'in karno qabyaaladda reer Calgary markaa ugu yimid dad aad qabyaaladda ugu yartiin baatiin jaamacadaha waa arkay iskuulaadkana waan aragnay insha Allah raadiyo telefishinna waan ila furi doonaa aad wax walba ka dhageystaan marka more aad united Soomaaliya qabyaaladda aynu ka fogaano waa more aynu wadi karno Soomaalinimada waa great Soomaaliya la oran jiray كبر الصومالي الأنجري شنطة الصوماليات بان أفريكان صومالي كونغرس واحد يراها جري صوماليزم كا أو صومالي مالي جبتو إنه حرنا ما قاعدته إن هوجر مرتسبا كا لكن صومالي مالي جبتو واحد إنه روح صومالية إن يسن دولة كسرين الروح الصومالي قد الشيء يسو يتعدل الشيء وقص الرئاسة يديجان كيس حرنا ما هكذا كوفر دي إن administration كان هكذا كوفر دي الله عنا حريصة عبد الله عيسى iyo halgamayaashii Soomaaliya u soo wada halgamayo Israel dhamaantood ku wada jiray aasaaska wuxuu ahaa Great Somalia waa shanta Soomaali waa intii af Soomaali ku hadasho dhan inay iswalaashadaan inay iskaalmeystaan inay meel kasta ay joogaan ee Soomaalinimada ka wada shaqeeyaan marka halkaas ayaan kugu boorinayaa kulli aniga da'weyn oo inta ka badan idiinsi laakiin aad waxaan ugu farxay oo caawa very glad ku ah aan ku celcelinayaa dhalinyarada reer Calgary number 1 number 2 idinka programmada diyaar gareysaan baan ka soo qayb galayna insha Allah wixii maartay deeq iyo maartay ganacsato iyo wax walbana gacan baadna lagu siinayaa marka maadaama idinka aad iloobid mahad gaar ah idin celinayna waana idin soo gabagabay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh First, I want to welcome everyone for coming. If you don't know my name is Nazra, and I am part of a Somali youth group with Faiza here. And tonight, we're hosting a fundraising to
give back to the less fortunate back home. So, and also celebrate Canada Day as well as Somali Day so thank you for coming and taking time to be here. I know time is important to you guys. And that's it. Welcome everybody. Let's enjoy it now. Let's enjoy it. DJ and everything. Thank you so much. Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay habiilba kala geeyay inka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keene waakan habiilba kala geeyay inka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keene waakan kariimkan barinayo karaama ku sarnaye kaalmeeya noqo kariimkan barinayo karaama ku sarnaye kaalmeeya noqo kabeebay ciyaara saylada kalwiya beeray kor u qaada saylici ku weynax kullana ku darso shoobana kalmayso haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha wasaqa kuwayni bakar ha kordhabo ceerigabo ha kahdo wilwila ku saaxib dhankada ku booda wareegtay ku kalla haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha kariimkan barinayo karaama ku sarnaye kaalmeeya noqo kariimkan barinayo karaama ku sarnaye kaalmeeya noqo kabeebay ciyaara saylada kalwiya beeray kor u qaada saylici ku weynax kullana ku darso shoobana kalmayso haddii Elohiya aha haddii Elohiya aha wasaqa kuwayni bakar ha kordhabo ceerigabo ha kahdo wilwila ku saaxib dhankada ku booda wareegtay ku kalla haddii Elohiya aha